وعيارتويدا iskuulka Imaamu Shaafici oo kor u haya koob dhiirigelin ahaa oo ay qaadeen kadib markii ay soo gudbeen wareegyo dhowr ah oo ay kula tartamayeen iskuulada qaar ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. koobkan oo ahaa mid lagu dhiirigelinayay iskuulada Jowhar qaadayna Imaamu Shaafici ayaa markii ay ciyaartooyda qaadeen waxaa ka hadlay macalinka koowaad ee hogaaminayay oo lagu magacaabo Najiib Sharey. maanta waxaan ka mid ahay tababarayaasha marka kasoo qayb qaatay tartanka koobkan socday. marka koobkan waxaa lagu maamuusay 5 marka iskuul waxaan ka mid ahayn iskuulada u tartamaysay koobkan. marka koobku wuxuu ahaa mid horyaal ah waana kusoo guuleysanay kaalinta koowaad ayaan kusoo baxnay. waxaan finaal isla imaanay dugsiga hoose dhexe sare Horseed dhib ayaan kusoo qaadnay. sidaas awgeed koobkii gacanteena ayaan kusoo manaysanay. maanta xafladii koobka ayaa marka halkan u joognaa. marka ilaah ayaa mahad iskale oo halkan noo kulmiyey xafladana si nabad ah noo riday. waxaan mahad gaar marka u mahad celinayaa ardaydii kusoo guuleysatay koobkan. macalinka labaad iyo mid ka mid ah macallimiinta iskuulka oo ka hadlay munaasabadan ayaa dhiirigeliyay ciyaartooydan koobka ku guuleysatay. arday loo qabtay tartan kubadda cagta ee socday bishar barkeesneed ee Ramadaanka loo qabtay dugsiyada ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe degmadiisa Jowhar. waxaa ku taala 6 iskuul 5 iskuul tartan loo qabtay oo horyaal ahaa. kaalinta koowaad waxaa ku soo baxay ama ku guuleystay ardaydan qiimaha iyo qaayaa leh ee dhigta dugsiga hoose dhexe sare Imaamu Shaafici ahna ahaa guuleystayaashii ku soo baxay kaalinta koowaad ee dugsiga. anna waxaan ahay mid ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe sare Imaamu Shaafici. waxaan tababar u ahay ardaydan ku ciyaaraysay magaca Imaamu Shaafici. waxaa ogtihiin degmadan 5 iskuul ayaa ka jirto. 5taas iskuul koob ayaa loo qabtay liira Zamzam. nasiib wanaag iskoolkan Imaamu Shaafici ardaydiisa ayaa ku soo guuleysatay. koobkii marka uu ku soo guuleystay ardaydii meel cidla lama dhigane ayagan magaciisa abaalmarin ayaa looga dhigay maanta in loo sameeyo xafladan. ku-xigeenka maamulka iskuulka Cabdi Maxamed Nuur Cawaale iyo maamulka guud ee iskuulka Imaamu Shaafici Cusmaan Maxamed Nuur Tifo Khaylshe ayaa kula dardaarmay ciyaartooyda inay sii wadaan dadaalkooda dhinaca waxbarashada guul weyn ay ka gaaraan dhanka waxbarashada. sidaa darteed waxaan u qabanay maanta munaasabadan oo ayaga imtixaan lagu sharfay ayaan u qabanay. ardayda dugsiga kalena waxaan u rajaynayaa mataqaana ay naftirkooda inay heerkan oo kale ay soo gaaraan. haddii maad Imaam Shaafici koobka uu qaatay insha Allah birina mataqaana waxa qaadan doona mataqaana kuwa kalento isuu ka yimid waa ardayda mataqaana oo degmada Jowhar mataqaana ama gobolka Shabeelle ama waxa uu ahay ama state kaba. sidaa darteed mar labaad waxaan leeyahay ardayda Imaam Shaafici ee koobkan kusoo guuleysatay iyo macallin maxamed tababarahoodii hambalyo. waxaan u hambaleynayaa dhammaan guud ahaan intii soo abaabushay in ciyaartan inta la qabta ee lagu qaato abaalmarin koob ah ha ahaato Zamzam ha ahaadaan dugsiyada ka jiro deegaanka. mar labaad waxaan u hambaleynayaa oo aan hambalyo leeyahay ardayda dugsiga hoose dhexe iyo sare Imaamu Shaafici ee ku guuleystay in ay kaalinta koowaad galaan soona hantaan koobkii. mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambaleynayaa dhammaan dugsiyada ka qayb galan oo u hambaleynayaa. waxaan rajaynayaa oo aan filayaa dadaalka ay muujiyeen ardayda dugsiga ee ay ku soo hanteen koobkan kagana soo hanteen 5 dugsi ee ku dhex jirtay dadaalkaas mid ka sii dheeraada iyo juhdigaas mid ka badan in ay gelin doonaan dhinaca waxbarashada. waxaan filayaa maanta iyo intii ka horeysay dadaalkii ay wadi jireen inay sii wadi doonaan haddana ay sii wadaan ayaan ka filayaa waana ka rajaynayaa ilaahay idinkiis. mar labaad mar saddexaad mar boqolaad waa idin soo jeesta walaalihiina saa u dadaasheen inay u dadaalaan ayagana ku dhiirigeliya waana mahadsantiin. Abuukar Ali Cadaabe Abuukar Yare warbaahinta City magaalada Jowhar.